Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Maalin wanaagsan dhammaantiin halkaad nagala socotaan waa Ibdaac Show. Waxaan rajaynayaa inaad caafimaad qabtaan. Waxaan isoo gudbinayaa halkan mowduuc yar oo iska degdeg ah. Shalay ahaa waddanka Ruushka ama ciidamada Ruushka waxay iclaamiyeen inay gebi ahaanba la wareegeen gacan ku haynta magaaladii dagaalku ka socday Ukraine ee Mariupol oo muddo dhowr toddobaad ay ciidamada Ruushka ku hayeen go'doomin kadib markay ciidamada Ukraine iskugu tageen warshad birta soo saarto ku taallay magaaladaas. Ruushkuna ay halkaasi geli waayeen. Shalay Jimcihii waxay sheegeen Ruushka inay isku soo dhiibeen laba guut ama laba wixdo oo ka kooban wax dhan 3,000 oo askari. Gebi ahaanbana ay gacanta ku qabteen magaaladaas ciidamada Ruushka. Dhanka kale Mareykanka iyo reer galbeedka iyo midowga Yurub iyo qaramada midoobay iyo dhammaantood qaylo iyo cabaad ay ka dhammaan laayeen. Halka Mareykanka uu lacag malaayiin dollar shalay ugu deeqay Ukraine oo ah lacagtii ugu badnayd oo Mareykanka ugu deeqo Ukraine intuu dagaalku socday. Waa inta la sheegay ee dadku og yihiin kor loo sheegay. Wixii hoosta laga dusiyay isaga waa gaar. Halka Ruushkuna waxaasi dhag jalaq u siinayna hawshiisana iska wato. Waxaasna una dhageysanayn. Mowduuc kale oo mowduuc asagana calaaqa la leh. Falastiin dhulka barakeysan ee Falastiin qaybta gumaystuhu haysto. Maanta Sabtidii waxaa lagu dilay laba wiil. Midna waa lagu dhaawacay dabcan midna waa la dilay oo wiil 18 jira oo xabad nolol shafka lagala dhacay. Halka mid 17 jir isagana dhaawac yahay isbitaalkana uu yaalo. Waxaa arrinkaas xaqiijisay wasaaradda caafimaadka ee Falastiin. Sidoo kale wasaaradda caafimaadka ee Falastiin waxay sheegtay sanadkan gudihiisa in lagu dilay waddankaas dad kor u dhaafaya 55 qof oo shacab ah. Bilaash macna la'aan risaas nool shafka lagala dhacay. Halka hay'adaha waxyaalahaas u doodaya ama xuquuqul insaanka sheeganaya ama dambiyada dagaalku sheegaya Ruushka ama waxyaalaha noocaas ka hadlaya aynan marna joog ka dhahin. Bal iskaba dhaafa ay malaayiin dollar ugu deeqayeen Israa'iil maalin kasta. Si dadkaas masaakiinta ay waxba galabsanin risaas nool shafka loogala dhaco. Arrinku waa la dagaalanka muslimiinta ee maaha la dagaalan argagixisa maaha la dagaalan nabadiid maaha la dagaalan xagjir maaha kaliya waa la dagaalanka muslimiinta iyo in la wareego dhulka muslimiinta gacantana gaar loo geliyo dhamaantii reer Falastiin. Allah u gargaaro. Assalaamu calaykum waraxmatullaah.